laba qof ayaa u ugaar tagtay kayn. labada qof midkood falaartii iyo leebkii wax ku ugaaran lahaa isuma saarna, wuu laafyoonayaa. qorigii uu wax ku ugaaran lahaana uma cabaysna. halka midka kale ay falaartii iyo leebku isu saaran yihiin, keebla yuurarna uu yahay. labada keebaad is leedahay ugaartu hadday soo muuqato uu haleeli og yahay. arrinka ayaa waxaan ku falanqayn doonaa kulankeena maanta ee kelmadiisu tahay maalmaha wacan ha sugine samee. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xilligii dadkii waa wanaagsanaa, barisamaadkii xilligii hore tagay u fiicnaa waa erayo aan wax badan maqalno. xilliga wanaagsani ama maalmaha wacani ma waxay ku kooban yihiin dad gaara iyo waqti gaara? markaad u fiirsato dadka dhahaya xilligii barisimaadkay wanaagsanaa, awoowayaashan xilligay noolaayeen, xilligii noloshiisaan ka fiicnaan, xilligii dadku saan ka fiicnaayeen ayaa lagu leeyahay. haddaan tagno xilliga awoowayaasheen iyo awoowayaashood ay noolaayeen aan dib ugu laabano oo aan flashback samayno ama timeline-ka intaan dib u jiidno aan gadaal u laabano oon la sheekaysano awoowayaashood ka warrama aan idhaahno, waxay noo sheegi lahayeen casrigaas iyo xilliga ay nool yihiin caqabadaha uu leeyahay, iyo waxaan ka dhex dheehan lahayn hadalkooda amaba ka arki lahayn noloshooda inay u xiiseysan yihiin xilliga ayaga ka horreeyay iyo dadkii ka horreeyay oo ay u arkaan dadkii wanaagsanaa iyo xilligii wanaagsanaa. ma jiro marka xilli si gaara u caleema saarno u wanaagsan. xilli kasta iyo waqti kasta iyo maalmo kasta waxay leeyihiin samahooda iyo xumaantooda intaba. laakiin sida la og yahay sooyaalkuna na tusayo ayaa ah in xilliba xilliga ka dambeeya fursaduhu ka badan yihiin, noloshuna ka sahlan tahay, qaabka loo nool yahayna wax badani fududaadaan. caqabadase waa jiraan mar walba oo noloshu kama marna. waxa keenaya nolol wanaaga iyo mar walba inaan u soconno ama u dhaqaaqno dhanka wanaajinta nafta iyo noloshana waxa weeyaan caqabadahaas yaryar ee ku jira. waxa xiisaha u yeelayana nolosha waa intaa uun kaliya, oo haddaynay maanta lahayn wax caqabada nolosha ama wax kaa hor imaanayo kaaga baahan xal oo un hal nooc kaliya ay tahay waa ka daari lahayd. maalmaha wacan lama sugee, waa la sameeyaa. dad fara badani intay lugaha isa saartaan gacmahana daanka saartaan ayay ku leeyihiin maalmihii wacnaa waa soo socdaan. si markii loo eego dhanka hididiila gelinta nafta iyo in aad saadaal wanaagsan saadaalsataa, way iska wanaagsan tahay inaad mar walba noloshaada u rajayso in khayrka iyo wanaagga uu kuu soo badanayo isla markaana uu kuu soo socdo. laakiin marna ha ku talagelin, hana ku tashanin in maalmaha wacani iyagoo iska lugaynaya iska imaanayaan ama adigoo cilaaman oo luguhu kuu saaran yihiin miis ay maalmaha wacani kuu imaanayaan. waxaad u baahan tahay inaad maalmahaas wacani xaggooda aad u dhaqaaqdo, xaggoodana u lugayso, raadisood baarto, samayso waxa kuu dhoweyn kara. u malaynin marna in wax aadan lahayn ama aadan u sacyin inaad helayso. الله القرآن كوحو كله يهي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والآذان ميو ليهي وحانو أدقاقن أو وماركتي قنتي قديش أدقانو رادين موياني نين أيا وحو يرهدا كاين تا أيان تغي تن دا أيان ميل كموتي نو كاين تا كجيرا أيا ربيمي مركابان وحان صوغالي تن دا ديدي روبكا أيو كغو أكراني معناها تن دا markii roobkii uu hakaday ayuu banaanka u soo baxay. wuxuu leeyahay marka teendhadii ayaan meesha ka qaaday, waxaan arkay meeshii teendhada ay taalay inay qalalan tahay. waa wax caadi ah sooma? teendhadii ayaa ka celisay roobka, laakiin ujeedadu uga socdaa u fiirso. wuxuu yiri marka waan la yaabay, aad baan ula yaabay. markaa baan si fiican u sii fiiriyay buu yiri, waxaan arkay buu yiri meeshii teendhada hareeraheeda ahaydna in meesha ugu dhiiqada iyo qoyaanka badani ay tahay. sababtu waa maxay? waxaa ku hooray roobkii teendhada saqafkeeda ama dusheeda ka soo hoorayay. marka wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu fursadaha iyo khayrka iyo barakada iyo maalmaha wacan u soo daadiyaa maalin kasta iyo mar kasta. laakiin dadku waa labo. qof banaanka u baxay isu dhigay khayrka alle
iyo wanaaga iyo maalmahaas wacan isu dhigo u banbaxay oo u diyaarsanaa isuna diyaariyay iyo mid ka dhakaday oo kaga dhuuntay teendhada. marka haddaad teendhada ku dhex jirto kuguma da'aya roobka. haddaad teendhada ku dhex jirto maalmaha wacan ma arkaysid. haddaadan u diyaarsanayn maalmaha wacan ma ka faa'iidaysanaysid. waxaan marka kuu sheegayaa 3 tallaabo oo kugu caawin karta had iyo gooraale inaad adigu samaysato maalmahaaga wacan ee aadan sugin marnaba, si noloshaada oo dhami ay u noqoto maalmo wacan oo wada socda. tallaabta koowaad waxaan leenahay isu diyaari oo mar walba diyaar u ahow keebla yuurarna noqo oo ha noqon ugaartihii aan falaarta iyo leebka isla haynin ee iska socday. tallaabta labaad waxaan leenahay waxaad isweydiisaa waa maxay nooca maalmaha wacan ee aad adigu rabi lahayd. haddaad habboon rabto u diyaari naftaada habboon la noolaashaheeda, ma tahay mise ma aha, laana fahmay u baahan tahay iyo barasho. tusaale ahaan haddaad business rabto inaad furatana la imow tallaabooyinkii qof businessmana uu samayn lahaa, baro wixii uu kaaga baahnaa, wax ka akhri. haddaa aad rabto in aad wax baratana noqo arday ku habboon waxbarashada oo dadaalkeedii iyo kartideedii iyo dhiifoonaanteedii intaba la imow. tallaabta saddexaad ayaduna waxay tahay waxaad raadisaa maalmahaas wacan ee aad filanayso ama aad jeclaan lahayd inaad samayso waa maxay xirfadaha gaarka ah ay u baahan tahay. haddaad rabto inaad shaqo bilowdo oo lagu qaato meel shaqo lagaaga qaato, og tahayna in shaqadaasi seminaarada ay u baahan tahay iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ay kamid tahay communication skills, inaad taqaan qaabka aad dadka ula xiriiraysid, customer services, inaad taqaan habka aad ugu adeegi lahayd maaragtay dadka macaamiisha iyo waxa la midka ah. waa inaad barato xirfadahaas. amaba lagaaga baahan yahay inaad noqoto qof karaani ah ama qof qora oo wax diiwaan geliya. waa inaad taqaana qaabka aad u diyaarin lahayd reportka iyo warbixinada u diyaarin lahayd. waa inaad taqaana qaabka aad u agaasimi lahayd meetingka iyo kulamada la isugu imaanaya intaba. waxaasoo dhamina waa xirfado kaaga baahan inaad baratood raadiso. saxaas tallaabo raac si aad u samayso mar walba maalmaha wacan. alle quraanku wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wasaabiquu ilaa maghfiratin min rabbikum. war u baratama, u tartama, u orda dembi dhaaf alle xaggii idinkaga yimaada. dembi dhaafka waa wax wanaagsan soo maaha, sida maalmaha wacan oo kale oo wax wanaagsan. tayib lama sugayo marka looma dhihin sug dembi dhaaf ay see ka yimaadeen. waxaa la yiri u tartan raadi oo u dhaqaaq dhankiisa. sidaas si lamid ah aduna u baahan tahay marka inaad raadisid maalmaha wacan. wax badan aan ku soo celcelinaya sababtoo ah waxaa naga badatay maalmihii wacnaa waa soo socdaan. xataa waa lagu heesay ma xasuusto maaragtay beydkii maaragtay heesta. waxaa la yiraahdaa fursadda markay timaado waqtiga aad ugu diyaar garoobi lahayd dhammaan mar hore. sidaas si lamid ah maalinka wacani markuu iridda kaa soo istaago tagtay ka faa'iidaysashadiisii. marka raadi maalmaha wacan oo samee. cabdiraxmaan ibnu cawf oo ah bilyaneerkii saxaabada, milyaardeeradii saxaabada ama bilyaneeriska saxaabada mid kamid weeyaan, wuxuu yiraahdaa dadku waxay sugayeen wax badan inay helaan oo xoolo ah oo badeeco ah si ay u gadaan wax badan una faa'iidaan wax badan. aniguse waxaan iibinayay dheh wax yar. marka wuxuu yiri wax yar oo loo geeyay wax yar waxay ku siinayaan wax badan marka uu dambeeyo soo maaha. sidaas si lamid ah maanta barkeed oo wacan oo loo geeyay biri barkeed oo wacan waxay ku siinaysaa hal maalin oo wacan soo maaha. maalin wacan oo loo geeyay maalin wacanna waxay ku siinaysaa maalmo wacan. maalmo wacani waxay ku siinayaan toddobaadyaduna waxay ku dhiibayaan biluhuna waxay ku sameynayaan sanadkuna wuxuu ku abuurayaa sanado wacan. sidaas ay noloshuna isu kaabaysaa isuna dhisaysaa. ma jiro wax hal mar wada yimaada, mana jiro qof gacmaha isu saaran yihiin wax u yimaada. waxay wax walba u baahan yihiin dhaqaaq iyo dhiifoonaan. dadaal, raadi maalmaha wacan, adigu samee oo ha sugin, rabbigaana tala saaro. mahadsanid.